فاقصص القصص لعلهم يتفكرون فاعتبروا يا أولي الأبصار عبرين إنكو قادنه إلهي سبحانه وتعالى قرآن كمركا وحينوك ورمي قصوين تربضا له قصصك وقرآنك كورمي وحينو عاوى اسكدينا يهبينا ذو كحيقا بين نسدوك تاقنه قصوين كمدحدا لغا ورمي boqorradu waa dad maamula waa dawlado soo jiray oo quraanku uu soo bandhigay dawladaha soo jireenka quraanku uu ka waramaya kuwa saalixiinana way lahaayeen kuwa taalixiina xunxunna way lahaayeen مثلا الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وحكى ورميا نبي الله إبراهيم ينمي وضدودين وبقرها وحالك ورميا بقر طالوت الله يلاحظه وحرب سبحانه وتعالى قرآن كوكا ورميا قصة نبي الله يوسف ملك أما بقر ما يشاكت الانشري أما عزيز مصر وحي الله سبحانه وتعالى وكا ورميا مثلا في سورة الكهف سدح بقر وكلا نوعه بقر ددك لينيي أصحاب الكهف كعررين iyo boqor dadka baadda ka qaadayo xoolahooda boobayay oo khidr yakiya u tageen nabiyullaahi muusa ee doonyaha saalixa qaadanayay iyo boqor saalix oo dunida ka taliya oo dulqarnayn la yiraahdo waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala kaga waramaya fi suurati an-naml boqor saalixa oo nabiyullaahi sulaymaana iyo boqorad iyana aqli qabeena marka meeshan la joogo oo fircoon iyo kuwa ka roon tolkeed khayru hogaamisay culimadu ay magac u sheegaan balqiis la yiraahdo quraanku haba yaraatee boqor gaaleed magacii ma sheegin alqaab quraanku sheegay boqorada muslimiinta abu magacyadooda quraanku ku yaalay ama mulukta aan ka warramay doona quraanku ka warramayo alqaabtooda ayaa laga warramay yaani sida fircoon oo kale فرعون وسيدا أكاسرة كلا أما قياسرة كلا ولقب أي قادن شرين مركا أما ملك بايلهي كنت الماما يا أما القاب النوع عسو كلا لقلت الماما لكن باسمه كوا صالحين ثم لقلت الماما نبي الله داود سليمان طالوت كوا صالحين تابا أسماء دو القرآن كي كسارورتي أما طالحين ما يسارورين وحكى الله إلهي القرآن كورمي في سورة البروج بغر كله ودك جبيي وحكى القرآن كورمي قصة بغر لجور رمى وغتر هذا بدن القرآن ك ويدا سم مفصل الله جور رمي سكلا بحسنا وبالبلارن وفرعون وعفلا يا لفظ فرعون حوالي 67 مرة ينتريين وكساروري رقبنا صدحية تضباطا بيشيغان مسيي سيرتوبين إن المصحف كهلا تضباطا يلي حلفتيد وحير لحدن يتضبا وحير ماها صدحية لباتن سورادات بكساروري ولباتن مكي تهي صدح سورادات ناي مدنيين مقابل كسياسة الرسوش كسهر جيدة أرى يقولوا قرآن كوكل ميبيع علماء يراهدان سياسة الاستكبار وحو ديدي إنو ربي وهو قانسمه that's all وحي كلاو دوني يمركا وهو قانسمه وحو ديدي إنو أمركا اللقات والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها بإلهيري أولئك أصحاب النار وأما الذين استنكفوا واستكبروا أيحسب الإنسان أن يترك سدى إنو مدح بنان يهي oo cid ka sarreyso wax ka qaata aanay jirin ayuu rumaysan yahay siyaasatu taalixiin dhammaantood waxay ku salaysan tahay markaasi wax iyaga dhaafsiisaniin aanu jirin ee basharku inuu isagu danihiisa walaaqdo oo maamusho oo wato cid ka dambayso war ka sugaana inaanay jirin walidaalika ya quraanku wuxuu soo bandhigayaa misaal basiita haddaan tilmaamo inuu isagu rabbinimo sheeganaya ama uu rabbinimo isu matalayo ama uu ilaahnimo isu sheeganaya quraanku tilmaamay mesela fircoon marka alla ka warramayo waxa la tilmaamay inuu dadkoo dhanaan rabbukum la'ala u taagna ama ma alimtu lakum min ilahin ghayri ama laysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti
waxaasoo dhan waxa weeyaan dhulka iyo dadka iyo bini aadamkaba isagaa sheegtay hadduu isagu sheegto waa inuu isagu wax walba u dejiyaa ka aan sheeganina afka ka sheeganina ee aan odhan anigu rab baan idiin ahayna waxay yidhaahdaan bilisaani xaalihii buu ku sheeganaya waayo hadduu qofku yidhaahdo sulto shacabka ka sarraysaa ma jirto ashacbu huwa sulta alculya meel ka sarrayso oo loo kacaa ma jirto وعلى لسان المقال على لسان الحال با waxay ku sheeganayaan inay iyagu yihiin sultada ugu koraysa yaan wax ka dambeeya jirin inal insana la yatqa ra'ahu istaghna cidda sultada ugu sarraysa marka sheegata waxay sheeganaysaa al-yad al-mutlaqa inay leedahay gacanta bannaan ee waxay doonto sharciyeyn karta waxay doontana bannayn karta waxay doonto xalaalayn karta waxay doonto xaaraantinimayn karta waayo cid ka dambayso ay wax weydiinayaan ma jirto cidda markaa dadka qaanuun u dejisa maamul u dejisa wax walba u dejisa ee tidhaahda innaga mooyaane cid inaga dambaysaa ma jirto ama magac boqortooyo markaa ha sheegato ama magac kooxeed ha sheegato ilaa groups baa dunida in badan maamula koox yaroo is urursatay oo ama xoolo ama dhaqaale ama sulutaadka iyaga ku soo urureen oo iyagu isu dhiidhiiba laakiin dadka kale aan u ogolayn inuu madaxnimadu soo gaadho yacni boqortooyadii tani maxay ku gadisantay boqorku nin qura haysta silsiladana wuxuu rabaa dhashiisa inay noqoto qolada tani maya koox baa haysata innaga inama dhaaftee laakiin inay isdilina innagoo isu dhiidhiibna weeyaan innaga inama dhaafto laakiin innagu inaan isqabsanay ayaan hoos loo soconayne baallaha loo socon karo isku soo wada dar insaanku wuxuu xor yahay oo qur ah suxalay maynan tilmaamin in xorriya waxyaabo bini aadamku raadinayo markuu ogolaado rabbi mooyaane inuu cid kale u hoggaansamin xorriyadaada markaa ama can ridan adigu kaga daadig adigoo ogol inay kuu taliyaan ama iyagoo ku qasbay ha kuugu taliyaan haddaad taa aqbasho waa alle wax ka sokeeyo rabbi laga dhigtay waxaan rabaa markaa inaan tilmaamo siyaasatu saalixiin gaarkeedaan uga warramaya waxaan wax ka tilmaami doonaa markaa siyaasadda kuwa daalimiinta ee uu qur-aanku ka warramay qur-aanku siyaasaadkaasi markuu ka warramayo kow wuxuu uga warramayaa dhaqan bulsheed inuu yahay sidaa awgeed qur-aanka kuma badna ama ihtimaam badan qur-aanku ma siinin in magacyadooda la sheego ihtimaam badan qur-aanku ma siinin meelahay deganaayeen in la tilmaamo ihtimaam badan qur-aanku ma siinin zamankay noolaayeen in la tilmaamo waayo waxay idhaahdaan daahirada tani ama dhaqanka kani waa iskaga mid meeshuu deganaa waa dhaqan mar kasta oo laga baxo ta ilaahay loo baxo zamanku doonayaada ama zaman ilbaxnimo la sheegtay ama badownimo la sheegtay kay doonto ha noqoto magaca wixii la doonayo loo bixiyo boqor ha loo bixiyo ama mid ka hooseeya ha loo bixiyo ama asmaadu maaha qiimo badan sidaa awgeed baa qur-aanku waxay culammadu yidhaahdaan hal mas'alana iyadoo la balballaadhiyey baa laga warrama waa fircawn iyo maamulkiisii iyo qaabku wax u maamulay iyo noloshii boqorrada kalena waxaa laga warramay baa la yidhi laqataat ama mashaahid tusaalayaal ka mid ah ayaa laga warramay waa maxay baa isweydiinta le markaa qaasimka mushtaragga ahi waxay wada wadaagaan waa maxay siyaasaddaa wax ka dhexeeyaa ma jiraan haa waxa ka dhexeeya baa lenayn kow masaladaynu tilmaamayno ah sheegashada rabbinimo la sheeganayo ama ilaahnimo la sheeganayo alla sokadii qur-aanku wuxuu ka warramayaa nebi ibraahim iyo boqor wada hadlay alam tara ila aladii xaaja ibraahiima fii rabbi an aataahu allahu lmulk id qaala ibraahiimu rabbiya aladii yuxyi wayumiit qaala ana uxyi waumiit waa boqor mashhadkaa quraba qur-aanku ka soo qaaday meel kaloo lagu soo hadal qaaday ma jirto wixii isagiiyo nebi ibraahim dhex marayna hal masalo qura laga soo qaaday laakiin waa masalada uu la wadaago kuwa kale oo dhan waa masaladaasi ah intuu nebi ibraahim la dooday
nebi ibraahim markuu sheegay inuu rabbi alle yahay oo cirka iyo dhulkaba abuuro dadka dilo nooleeyo ilaahay baa dadka dilana nooleeyo isna wuxuu sheegtay inuu isna dilo nooleeyana boqorkan isna wuxuu sheegtay inuu isna wax dilo waxna nooleeyo quraanku wuxuu ka warramayaa maalan afcaasha boqoradaas oo tusaalayaal ka bixinaya dadka sidan u dhaqmaa dhaqankoodu waxa uu noqdo مثلا وحو قرآن كو كورميا مشهد ما صورة كمدة فعل سميي بغر رضاسي كمدة أصحاب الخدود بغر كيو لا كل مي إلى هي أصحاب الخدود بغر كان لا كل مي مقعود مشيغين أو متل ماي وحلا الشيغي دقن كيسي إنه بقرها سنة النبي قال شيكتي عليه الصلاة والسلام يعني النبي عليه الصلاة والسلام وحط المامية إنه تشري كان ملك في من كان قبلكم boqor baa jiray boqorada waqtiga idinka horreeyeen noola boqorka kanu quraanku ka warramaya waxa uu tilmaamaya inuu isna rabbinimo sheegtay mesela xadiidka nabiga kaleey salaatu wasalaam ee qisatu asxaab al-ukhdud ka warramaya waxa uu boqorkan ku sifaynaya inuu saaxir roolo lahaa sixroolihi inuu yiri waan gaboobay wiil baan u baahnay aqoon badan ama aqli badan oo wax baro wiil yar in loo dhiibay wiilkii yaraa sixirkii isagoo baraya meel dhexe nin suufiyo oo wadaado meel iskaga cibaadaysanaya wiilka yare arkay uu sii maro dabeetana karine tawxiidka uu dhigo kan kalena shirkigiisa uu dhigo wadaadka uu markuu sii socdana uu sii maro markuu soo socdana uu soo maro wiilkii yaraa xaq iyo baatilkiiba markii loo sharxay xaq uu la xoog batay dabeetana ilaahay rumeeyay subxaanahu wa ta'ala maxallu shaahidkeenu tagaynaa qisadatan maxallu shaahidku waa maxay boqorka xaashiyadiisii mid ka mid ah ayaa inabeelay dabeetana wuxuu maqlay wiil yar baa ilaahay dadka u baryo oo dadku indhaha u baxaan ay u fiiqmaan oo hagaagaan wiilkii buu yima wuxuu yidhi hantaan ku siinaya ayaa indhaha ii bixi wuxuu yidhi indhaha anugu ma bixiye ilaahay haddaad rumaysaanna waan kuu baryaya waayahay buu yidhi ilaahay buu rumeeyey subxaana wa tacaala wiilkiina rabbu u bariyey ilaahay baa indhihiisii u soo celiyey ninkii ayna qabaa maalintii dambe tegey boqorka dee majliskiisii ilaa xaashidu ka tirsanaaye wuxuu yidhi yaa indhaha kuu saaray indhaha waa kuwa kuu soo noqday xagay ka yimaadeen wuxuu yidhi rabbigay baa indhaha ii hagaajiyey awalaka rabbun hayri buu yidhi halkaasuu taagan yahay ooma mid aan aniga ahayn baa kuu rabbi ah يعني ninkan madaxdahay waxa buu diidan yahay ninkan shaqaaliisa kamida ama xaashidiisa kamida inuu yeelan karo rabbi kale ayuu diidan yahay awalaka rabbun ghayri buu yidhi ma cid aan aniga ahayn baa kuu rabbiya markaasuu yidhi rabbi wa rabbuka allah aniga iyo adigaba allah inoo wada rabbiya buu yidhi dabeetana xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa in ninkii la toorjargareeyey oo wiilkii uu sheegay oo wiilkii la toorjargareeyey oo uu raahibkii sheegay oo raahibkii la yidhi diinta ma ka noqonaysa oo uu diiday oo mishaar laba loogu kala gooyey oo ninkii indhaa loo bixiyey la yidhi ma ka noqonaysa oo uu diiday oo madax muxuu dadka ku laynayaa rabbinimadayda ictiraafa waxa dadka lagu laynayaa waa maxay inaan rabbi ahay hala ictiraafo cidii diidda labuu kala jarayaa ilaa iyo quraanku ama xadiidku nabigu calayhi salaatu wasalaam inooga warramayo wiilkii markii uu dili kari waayey ugu dambaystii wiilku inuu yidhi haddaad markaad qaansadayda qaadato laabka aad ridaysa ilaahay aad ictiraafto tidhaahdo bismika allah bismi illaahi rabbi alghulaam haddaad tidhaahdo waad i dili karaysaa boqortooyadu ilaalinayayba wixii uu ka dagaalamayayba waa ilaabo boqornimada inuu ilaashado daraaddeed bay eraygii ku dhawaaqay wiilkiina wuu dhintay بسم الله رب الغلام قصة نودن محين وجدنا قرآن كوحين وقت المامي نين دكي كهر يمي جبي كودين تو قاضي كاملة كجري أو جبي حديث النبي قلنا وحشيري عليه الصلاة والسلام نين كان ينو بقرها دودي سنا يكسر إسنايدن لا اعتراف الرب النمديس dadkuna markay rabbinimadiisa ictiraafi waayeen inuu markaasi gubistan ku sameeyay quraanku wuxuu ka warramayaa boqor kale oo aan kuwan ka fogeyn
isna wax dulminayay idhaadinayay cadaadiska ku hayay laakiin quraanku ka magaciisa ma sheegin waxa qura uu sheegay xataa inuu boqoriyay lama tilmaamina waxa la tilmaamay baa la yiraahdaa dadkii saalixiintii ka hor yimi markay wada hadlayeen hadalkoodiiba ka soo dhaxbaxay innahum yadharu alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millati ma lan tuflihu idan abada mufassiriintu waxay dhahaan boqor baa laga soo cararay dabeetana waxa boqorka haddii uu dadkan gacanta ku qabto wax laynaya isaguna waxa kale uu quraanku tilmaamaya boqor xoolaha dadka xoog ku qaada xoolaha dadka wixii wanaagsan isagu ma iska leh qof kale oo wax yeelan kara ma jiro wixii ceeb leh dadku bulshada way yeelan kartaa wuxuu wax faa'iido dhalaya ma fiican haday noqdaan oo qurux leh xagga dawladda iyo boqorka waa inay martaa dabeetana wuxuu qisadeenu tilmaamaynay Khidr iyo Nabi Muuse waxa uu Nabi Khidr tilmaamay amma safina fakanat lil masakin ya'maluna fil bahr faratu an a'ibaha wa kana wara'ahum malik ya'khudhu kull safinatin ghasba wa boqor boobu taagan waxa sifada labaad ee marka quraanku irooga waramay ko waxa la sheegay inay rabbinimo sheeganayaan ama ilaahnimo laba waxa la sheegayaa inay wax gubayaan waxa kale oo la sheegay inay wax dilayaan waxa kale oo la sheegay inay xoolaha dhacayaan kuwaas oo dhan quraanku tusaalayaal kooban oo meela abu ka tilmaamay laakiin qisada ugu ballaaran hadaynu iyada in dooro isdul taagno waa qisada fircawn quraanku wuxuu soo bandhigayaa dawladda iyo dhismaheedii wuxuu soo bandhigayaa nabi muuse iyo reer banu israa'iil iyo qaabku uu la dhaqmay fircawnkaasi qisada ugu badan le quraanku uu ka waramay aynu leenahay 760 jeer buu quraanka magaciisa ku soo aroray ee tilmaamnay in uu gaadhsiisan yahay 23 suuradood in lagaga waramay quraanku markuu dhama sheegin magaciisi حتى علماء waxay yiraahdaan lama sheegin ma laba fircoon baa mise hal fircoon un buu ahaa way quraanku wuxuu tilmaamayaa nabi Muuse yari inuu guriga fircoon ku soo koray nabi Muuse wuu weynaaday wuu iska tagay wadanka loo degay waa guursaday waa xoolaystay waa soo noqday isagoo nin weyn oo makiin baa sii noolaayo meesha wali sii haysta mise kii dhimay waa fircoonkii waa fircoon labaad مفسرين labadaba waa sheegaan laba fircoon bay kala haayeen kii barbaariyay iyo kan dambe sakiyun badaad la dheeraato wali meesha sii fadhiyay waa su'aal isweydiin leh lama sheegin magaciisu ku ahaa waayo hadafka uu quraanku ka tilmaamay ma aha in qisanimo looga waramay waxa la rabay in la inoo tilmaamo fircoonnimada iyo sifaadkeeda fircoonnimadu waa shaad la gashadee shaadka cidda gashan iyo sifaadka ay leedahay namaadijtaasi quraanka tirada badan le marka waxa ugu badan ay soo bandhigaysaa qaab dhaqanka dawladaha dulmiga ku dhisan oo inay wax gubaan inay wax dilaan inay dadka aqeedadooda qasab kaga bedelaan xoolahooda inay xoog ku qaadaan quraanku waxa soo dhan buu sharxaya fircawn iyo dawladiisa waxay ka koobnayd mukawanaat laba raayay culimadu soo bandhigaan laakiin ka Dr. Abdurrahman Umar al-Isbindari risaaladiisa cilmiga kaas baa ila qurux badan labadaba waa sheeg waxay tilmaamaan arkaanta dawladnimo ee fircawn saddex bay ka koobnayd bay dhaahdaan boqor iyo qolo waxay leedahay wuxuu ahaa boqor iyo siyaasi usuuliya nin xirfadiyahana oo siyaasiya oo laakiin dakaagiisa iyo aqligiisa iyo raganimadiisa iyo xooggiisa oo dhan isugu geeyay inuu isna hunguri ku cuno dadkana u hoggaansiiyo u duleeyo boqorka kan meesha jooga iyo asxaabil maal ku dhaqaalayahana oo raba dadka inuu u dhiigmiiro boqorka in badanna isna nuugo boqorkana wuxuu tuuro
dabeetana qoladaa hore waxay ku tilmaamayaan saddexdaa kooxood inay ahaayeenoo kooxi waa fircawn, midina waa haamaan siyaasiga ahi, midina waa qaaruun bay idhahdaan. laakiin fikradda isbandaari baa ka dhadhow oo ah waa saddex shay buu leeyahay dowladda tani waxay ka koobnayd. waxay ka koobnayd xaakimka oo fircoona ninkan rabbinimada sheeganaya ah. laba, bataanatu suu buu leeyahay kooxda madaxweynaha ku xidhan ee bataanatu suuga ah. bataanadu waa xaashiyadii, waa wasiirada iyo baarlamaanada iyo madaxda iyo waxaas hoos yimaado oo dhan, oo inta badan waxay noqdaan midabka uu leeyahay ninka madaxda ahi bay yeeshaan. ninka madaxweyneahi hadduu nin caqli badan yahay oo dadka dantooda ka talinaya, wuxuu keensadaa dad cuquul leh uu sileeya waxbay kugu kordhinayaan. hadduu se axmaq rabo inuu meesha fadhiyo yahay, ma jecla qof isaga ka muuqaal dheer horta inuu keeno. waa in isaga ka hooseeyaan dadka kani, waayo ninkaa fariisan dee ma amri kartid ama ma wadi kartid. waa inay noqdaan tabaqa adiga kaa liidata oo kaa hoosaysa. ninka kani fircawni isagu waa xaakimkii, wuxuu watay bitaanatu suu. bitaanatu suugani maxay ka kooban yihiin? waxay ka kooban yihiin rijaal siyaasa, waxay ka kooban yihiin rijaalu diinka, kuwa siyaasadda, kuwa diin ahaan dowladda dadka u musulaxee u wada. waxay ka kooban yihiin kuwa dhaqaalaha leh. kooxdaasoo dhammi waa xaashi dana gaara wada leh oo ku xidhan fircawn. qaybta saddexaad markaynu bitaanadaa ka nimaadno, rijaal siyaasa iyo rijaal اliclaam iyo rijaal diin iyo rijaal ilmaal iyo kooxdaasoo dhammi waa tabaqa wusuuliyiinah oo dowladda manfac iyagu ku qaba, ninkanna raba inay dadku ictiraafaan inuu rabbiyey, ama si daaragta ama indaaregta kay doontaba ha noqotee. kooxda saddexaada uu tilmaamayo doctor cabdiraxmaan waxa weeyaan almu'asasa alcaskariya. waa ciidanka booliis iyo military iyo NSS iyo waxba isku wada dar, mu'asasada caskariga ah. waayo qur-aanku markuu fircoon ka warramayo 7 jeer baa ciidanka la raaciyey, waa junuudihi iyo wajunuuduhuma la daba dhigay. wuxuu leeyahay waa kooxda kan. aan eegno qaabku qur-aanku u soo bandhigay. kow, madaxda duqaadda ee fircoon mataliya. fircoon ilaahay wuxuu inoogu tilmaamay kow inuu sheegtay faxashara fanaada, dad oo dhan buu isugu yeedhay. fagaarihii ummaddu markay isugu timi muxuu ku dhawaaqay? ana rabbukum ulaclaa, anigu waxaan ahay rabbigiinnii korreeyey. bale wuxuu sheegtay inuu ilaah yahay. nebi muuse markii uu u tilmaamay xaqa wuxuu ku yidhi lain ittakhadta ilaahan hayrii laajcalannaka min almasjuuniin. ilaah aan aniga ahayn haddaad yeelato, cid kale haddaad caabuddo. cibaadadu waa maxay? waa weynayn iyo kalgacal wada socda. yani waxa weeyaan inaad dowladda weynayso, daacad u noqoto, dabadhilif u noqoto. taa haddii lagaa waayo oo aad wax kale ku bedelato, laajcalannaka min almasjuuniin, waxaad ka mid noqonaysaa kuwaan xabsiga ku jira. bale kibirka fircoon wuxuu gaadhay qofka marka la buunbuuniyo marka dambe wuu buunbuunsamaa, dabeetana xaashida ku wareegsan xataa buu u sheegtaa. fircoon wuxuu gaadhay caamadii ka kaalay uu ku yidhi ana rabbukum ulaclaa. rijaalu siyaasiya, rijaalu maalka iyo ragga agtiisa joogay muxuu ku lahaa? وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. marka kan mala ay joogtaa, ma joogto shacabka iyo caamadii lala hadli maayo, waa golayaashii. dabeetana wuxuu leeyahay fircoon yaa ayuha almala'u, madax yahay, maa calimtu lakum min ilaahin hayri, ilaah aan aniga ahayn idiin garan maayo. ee faawqid lii yaa haamaanu cala tiin. waa haamaan buu amarra siinaya caynka kan. goormay caynka kani dhacdaa? waxay dhacdaa bataanatu suu. ninka madaxdaa markay buunbuuninta ka tiro badayaan isna wuu buunbuunsamaa. xadday gaadha haddii ay ag fadhiyaan ay yidhaahdaan
haddii shaah la soo qaadan la karinayo waxa laga yaabaa inay yidhahdaan ka madaxweynaha shaah ka fiicani ma jiro dawa shaah yani qofka marka la buunbuuniyo ee wax kasta la sidoo madaxweynuhu sheegay sidoo caynkan ka sheegay aw isagu noqdo khabiirka wax walba ka warrama ee afkiisuun lagu hadlo ee buunbuunintu ka badato ee ay dadkanina yihiin daddana ka wada leh ay dhici weydo qof hadal ku celin karaaba inuu jiro qisaska igu cajabta badan laan maqlay waxa ka mid ah dawladdii Soomaaliyeed baa la yidhi baa golihii sare iyo wixii wada socdaa shir u fadhiistay nin kuwii shirka fadhiyay baa ka warramaya dabeetana waa la wada hadlay waxa laga wada hadlayaa Soomaalidu carabta ma gashaa mise ma gasho yani waatii dawladda carbeed lagu biiray dawladaha carbeed waa markii lagu biiraya laga wada hadlayaa dabeetana madaxweynihii baa la garan waayay ra'yigiisu dhanku jiro waa la hadlay 24 saacadood baa tagay waa la soo noqday waa la hadlay 24 waayo ninkan baa gad bixi waayay meeshuu xiga la garan waayay 27 saacadood markay marayso ayuu ninkii ku xigay la hadlo wuxuu yidhi war madaxweyne waxa ku xiga sidii waxaan u malaynay inuu xagga carabta xigo kiiba bilaabay markaas yidhi madaxweyne inaynu carabta galaaba la qaato waa la isku wada sacbay marka xaggaas la wada galay 27 saacadood bay qaatay in la ogaado ninkan ay xaggu doonayo waayo iyadaan la garanay xaggu doonayo waxba lama oran karo ilaa xad markay gaadho inaad uun raadacaynayso ninkan aad la fadhida qalbigiisu xaggu u janjaraad uu ra'yi kale ma lihid waxaad raadacaynaysaa ninka aad ag fadhiday madaxda ahi xagga bal caqligiisu u janjeeray inaad raadacayso markay ku soo baxdaaba ra'yiguna soo baxaya fircawn kooxda tan markay noocaan noqdeen wuxuu leeyahay ma calimtu lakum min ilaahin ghayri iyagoo maliisiya oo dadkii isaga dadka ka dhigay ee buunbuuniyay ayuu hadana wuxuu leeyahay maxay ma calimtu lakum min ilaahin ghayri bulshada quraanku wuxuu inoo tilmaamayaa fircawn inuu isticbaadsaday siyaasadiisu inay ahayd farq tasud qaybi oo xukun oo maamul bulshada haday bulsho samaha ku wada jirto tahay xumaha lama marsiin karo laakiin waxay u baahan tahay marka koox la cadaabayo koox in wax la dhadhansiin karo si ay kooxdaasi waxoogaageedan ay cunayso u ilaashato oo aanay dan ka galin dulmiga kuwa kale ku dhacaya dulmiga dadka kale ku dhacaya aanay dan ka galin idan dulminimada ma diidana ee qoqol waliba wax laga yaabaa inay cadhoonayso marka dulmigu iyaga reerkooda soo gaadho kuwa kale inta la tumayo damadan kama leh ولذلك ما إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحكو تلمام يا فرعون سياسة كل قميين يا هيد بلشديسي إنه الشيع كدقي يستضعف طائفة كوحين توقيبيي أيو كوح كمدة كلبة ميام قراعي إلى حد استعباده وإلهي واقع قرآن كله سبحانه وتعالى ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أن نؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون dadka wuxuu ka rabaa xad adoonnimo inuu gaarsiiyo nabi muuse wakala wa tilka nicmatun tamunnuha calayya an cabadta bani israa'iil idan siyaasatu tugaat quraanku wuxuu sawirayaa inay tahay bulshada in la gaarsiiyo xadul isticbaad in la adoonsan karo haddii xadkaa gaadho waxa weeyaan xumaha ma diidi karto walidalik ya imaam الraazi baa wuxuu leeyahay طغيانka xadka ugu dambaysa uu gaadha waxa weeyaan khaaliqiya khalqigiisaba markuu ku xadgudba buu leeyahay kamaalul ubudiyya buu leeyahay cibaadada dhammaystirankeedu waxa weeyaan dadkana inaad si fiican ula dhaqanto rabbigana inaad si wanaagsan ula dhaqanto kibirka dhammaystirankiisuna waxa weeyaan rabbina inaad tiisa dafirto dadkana inaad adoonsato xad buu gaarsiiyey markaa wixii diida waa sanuqatilu abnaa'ahum wanastaxyi nisaa'ahum quraanku wuxuu tilmaamayaa madaxda noocaas iyo siyaasadka ku dhaqanta inay yihiin dad ra'yigooda oo qura raba inuu socdo ولذلك ما إلهي القرآن كوحو لي فرعون مركي لغا ورمي قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد لئن اتخذت إلها غيري لا جعلنك من المسجونين هدو أرنكو عينك أي هاي وإن لا يقاون مدحوينها فكرة دي حاجة وشان شعره
bulshada oo dhami taas umay ku sacabinaysaa markaa dadka oo dhami idan waa xorriye kale ma jirto sababtaasi waxay ku dhacdaa qaarkood xoog bay ku samaystaan qaarkoodna lacag bay ku samaystaan waxaa laga yaabaa siyaasiyiintani waxaan dabarab lee eegaya hadday iska tagaan inaan cidina wax tidhaahdeen laakiin masaalix yaroo maadiya ay ilaashanayaan baa waxay ku kaliftay inay xaddul isticbaadka ay aqbali karaan طغيانka madaxda waaweyn quraanku tilmaamayo waxay caan ku yihiin inay xaq aanay u soo janjeersanin bal markiiba inay beeniyaan ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay walaqad araynahu ayatina kullaha aayadka igiyo dhan waanu tusnay baa ilaahay yiri fakadaba wa aba waana beeniyay waana diiday baa ilaahay leeyahay falamma jaahum biayatina idahum minha yadhakun وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون إذن كاسوا طبقات وقصة الرئيسة أهل الظلم لكن شرنشردني waxay u dhisan tahay mala aba ku xiga ama bitaanada sayyi'ah han noqoto rijaalka siyaasadda han noqdaan rijaalul maalka nafciyiinta ku dhadhow dawladda han noqdaan wadaadada culamaa sulta ee dawladda barakaynaya han noqdaan kuwa ugu daran rijaalka media waxaan al-i'laam warfaafinada kuwa jooga han noqdaan waxaasoo dhan marka la isku daro iyaga afufo dadka u addoomiya madaxdatan سدرادت با إلهي سبحانه وتعالى كوحدا مركا وحكو تلماما يا قرآنكو الملأ أما بالذين حوله مدحي واوينتي أما كوي ملأها يعني يملؤون عيون الناس هيبة أو واحد دوران بهذا دادك كم مغضي يعني كان حاشدة كوحدة تاني xumaha way la wadaagaan way haday kooxdan ay hagaagsantahay ninkan rabbi ma sheega karo ma kibri karo sida ugeed baa ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku tilmaamaya inay la qabaan dilkan iyo dhacan iyo dulmigan iyo waxa kan wajaa rajulun min aqsa almadinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka min an-nasihin ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه قال للملأ حوله إن هذا لصاحر عليم قال للملأ حوله ألا تستمعون قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لصاحر عليم كوحدا بطانة وكوحدا وقرآن كنت الماميين ملأيين ملأكني صفات كإليين وحو قرآن كنت الماما wixii wadaygu sheegay inay aqbalayaan bal labadan aayadood u fiirso ilaahi subhanahu wa ta'ala fir'aun wuxuu ka sheegay qala lil mala'i hawla inna hadha la sahirun alim fir'aun wuxuu ku yiri kooxdii la fadhidee madaxdiisa ahayd muuse waa maxay buu yiri waa sahir alima bal adamala ana dhageysaa dhow inta un bay iyaguna faafinayaan aqal kale ma hayaan إلهي وحو قرآن كله قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم ولفظي فرعون يري قرآن كو تلمامين فرعون عين كالي يهي يا ربي وحو تلمام يا ملأ كاننا وركي ددك وشيغي يرينو يهي لفظي سادر أدد با إلهي وحو قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم وطبقه إيجا لفتو دا إصلاح ودمه وناقا دبه wanaaga dhibo oo mar rabaan wanaaginu meesha tan ka dhaco sida daraadeed hatta fircoonka meesha jooga waxyaabaha qaar kood hadaaba isaga dul qaadan la ama uu arki la wax weyn in aan ahayn iyaga tirtirsiya hadana madaxweyne waxaan wax ka qabanin dawladdu jiri maysa ama wax ka risaar noqon ma iyaga taagan walidaalka ba ilaahay quraanka wuxuu tilmaamaya nabi muuse وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض يقع ترترسين يا فرعون دبتنا وحي يدهدين مدحيوين تي فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك فرعون وموسى يقوم كسيميات كتغيسة هو الدين سيدول كوفة هاديان وهذه هي عبادة هذه وحاقة با يغطق المساسات أقلانيسة
markaasuu fircoon soo jeesta uu yidhi sanuqatilu abnaa'ahum wanastaxyi nisaa'ahum waina fawqahum qaahiruun waa tabaqa mufsida oo xataa isagu hadduu waxyaabaha qaarkood hilmaamo iyagu u taagan fasaadka in la fuliyo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa kibirka inay la wadaagaan famaa aamana limuusa ilaa duriyatu min qawmih calaa khawfin min fircawna wamala'ihim أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك قرآنك حينات المامين طبقة مفسديه فاسدين وحكى الله قرآنك المامية كبرك يبطشك iyo istikbaarku inaanu fircoon qura ku koobnayne tabaqada tanina inay la wadaagto waxa kale quraanku inooga waramaya muassasada askariga ahina inayna rukun kamida yani saddexda dardar dharigu saaran yahay mid waa madaxweynaha ama maamulkaas meesha ka jira madaxa ugu sareeya boqorka qolana waa xaashiyadaasi ka agdhadhow ee malaw quraanku tilmaamayo kooxda saddexaad ee siyaasadkan fuliyana waa asaakirta sida quraanku tilmaamayo ilaahina subxaanahu wa ta'ala wuxuu tilmaamayaa inaanu ninkan madaxda quri dambiile ahayn saddexda kooxood baynay dambiilayeen inna fir'auna wa haamana wa junuuduhuma kanu khaatiin ba ilaahi subxaanahu wa ta'ala ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون صدحدا كوخود با inay dulmiga ku wada socdaan baa ilaahay tilmaamaya subxaanahu wa ta'ala walidaalika baa quraanku fircawn 7 jeer buu la magacaabay ereyga junuuda ah fircawn iyo lafdiga jundiga askartiisa ahi 7 jeer bay quraanka ku soo wada arooreen طبقات سارة أضي طبقات الظالمين تاتهاي أسكرتي ذا يريرين النوع عصي نغطاه ولذلك بالقرآن كإلهي وحليه واستكبر هو وجنوده بإلهي فرعون واقوا كبري السجا إيابا ليري محي إيه أسكرتي سبا يعني طبقات ولا كلا كبر سريون لكن شعب كمركي تهاي ومن العسكر إلى أي حاكم كوجو سرية كبرك وودا وداغا استوغد با إلهي سبحانه وتعالى وحو كتلماميا كوحدة حتى شقدودو inay tahay waa dulmiga dad ilaaliya oo heegan u ah walidaalika quraanku wuxuu tilmaamayaa cid kasto islaax isku dayda inay iyaga yihiin tabaqada khatarteed daba socota faatba'ahum fir'aun maxay iyo بجنوده بإلهيه فغشيهم من اليم ما غشيهم فرعون كالجي وحومة ترين ومؤسسة فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى إلهي سبحانه وتعالى وحط الماما يا مركب حتى عقوبة دي سودكتك ما ده حدا قولكم يدعينا مع جنودة الظالمين بهاي هذا دقوا إلى الذين ظلموا واتكتير سطوه أدنى الظلم قواد لو ذاكته ساوجد با إلهي مركو قبنا يوحت المامية فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين فرعون يا آل كيسة يا حاشية ديسة يا جنود ديسة يا وحودا مؤسسة دمان تد وذا ظلم يبه مركا إنه صاد وضبنا وحين لأن القرآن كوحينات المامية فرعون نمضه وقاب مامل وقاب كاس الظلم يكوصل ليسن القرآن كوحيت المامية إنه يتهي مؤسسات كاس صدح لك كوبا ولذلك ذاتك بدبا وحي كفكران ninka ugu sareeya hadii dawladda madaxa laga gooyo miyo wanaagsanaan isaabadu malaynaysa taad qarxiso madaxweynuhu halku ku jiro maxay isbedelaya tabaqadan dhamaanteed waa faasid mid ka faasidnimo badan inuu fulaan bay u badantay imisa ku boobteeno la waayay yani tabaqa waa nidaam dhan oo dhisan oo cala alfasaad ku dhisan oo arkaantiisa dhamaanteed leh isbedel kuma dhaco
mid dhinta iyo laba dhinta iyo saddex dhinta toona isbeddel kuma dhaco waxa isweydiinta lagu quraanku ka warramaya waxa weeyaan dawaaficda ama asbaabta keenta tuqyaankan siyaasiga muxuu yahay haddaynu rabno inaan tuqyaanka siyaasiga daweyno waa maxay usuusha uu ku taagan yahay haddii dawo loo helo uu dawaysmaya asalka koowaad bay waxay yidhahdaan culimmadu waxa weeyaan waa masale caqiidiyo aakhiro aanay rumaysnayn hadday aakhiro iyo xisaab uu qofku si dhaba u rumeeyo ma kibro ma qooqo dulmi ma sameeyo laakiin hadduu rumaysan yahay wuxuu doono intuu kugu sameeyo inaan cidiba qabanaynin ama ofiska marka la tagana inuu isagu kaa magac dheeriya ama kaa maamuus badan yahay idan ku dulminaya wax kaa celinaya ma jiraan hadduu se rumeeyo wax kasta uu sameeyo in maalin la xisaabinaya ay jirto qofkaasi dulmiga kuma dheereeyo walaw kaa xoog weynaadana laakiin mar hadduu og yahay saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyahay waqaala muusa innii cutu birabbii warabbikum min kulli mutakabbirin laa yu'minu biyowmi alxisaab buu ku sifeeyey waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka magan galayaa buu leeyahy mid kastaoo qooqay oo aan rumaysnayn maxay maalinta xisaabta hadduu maalinta xisaabta rumeeyo macnaheed waxa weeyaan dulmiga kan wuu ka joogsanaya ilaahay wuxuu leeyahy wastakbara huwa wajunuuduhu fi lardi bigayri alxaq waayo wadannuu annahum ilayna laa yurjacuun waxay maleeyeen baa la leeyahy subxaanahu wa tacaala inaanay noo soo noqonaynin idan dadka aan mustakbirka ahayn dadka aan kibirsanaynna qooqsanayn cibaaduraxmaanka ilaahay wuxuu ku sifaynayay inay yihiin waladiina yaquuluuna rabbana asrif canna cadaaba jahannam ina cadaabaha kaana haraama waa dad aakhiro rumaysan haddii markaa caqiidada ah aakhiro inay jirto ay faafto dulmigu uu yaraanaya hadday faafto caqiidada ah rabbi subxaanahu wa tacaala inay dadku si fiican u fahmaan oo takabburka iyo quruurka oo qofku moodo inuu isagu wax walba hantaa waxaan keenaa fircawn inuu kibro waxa ku kalifay wuxuu yidhi yaa qawmi alaysa lii mulku misra wahadihi alanhaaru tajri min taxti wuxuu lahaa amana khayrun min hada aladii huwa mahiin walaa yakaadu yubiin idan altakabur waalguruur ayaa keena siyaasaddan daalimka ah haddaanu kibir haynin ama guruurkani aanu haynin qofku wax ma dulmiyeen walidalik baa ilahay ku sifaynaya fastakbaruu wa kaanuu qawman mujrimiin maqruur iyo mustakbir ayaa mustabid bira'yihi noqda siyaasaadkana fuliya ilahina subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahy waama man tagaa wa athara alxayaata addunya iyo baa la isdhinac dhigay qofkii aakhiro xasuustay marnaba markaa kibirku waa cillo weyn oo ka mid ah cilalka keensada dadka kan inay dulmiga sameeyaan waxaa ka mida baynu leenahay waxa loo yaqaano madaxnimo jacaylku insaanka wuu ku abuuran yahay laakiin wuxuu u baahan yahay insaanku inuu maxay qofka mu'minka ahi inuu naftiisa kontrooli karo madax noqo haddaad u xidhxidhato waxaa la filayaa inaad meelo badan ka dhici doonto qaldan waa albaabkii ibliis uu aadam uga galay hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yablaa buu ku yidhi waa niqaad dacfi albashariya inuu qofku magac iyo maamuus jecel yahay iyo inuu kor noqdo qofka tawaaduciisu batee waxaasi ka taga dulmigiisu wuu yaraada waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka uu ku tilmaamaya madaxnimo doonkani inuu yahayba wixii dhaafiyey nebi ibraahimkii la murmayey waayo nebi ibraahimkii la murkayey ilaahay muxuu ku tilmaamay an aataahu allahu lmulk idan madaxnimo raadinta lafteedu waa dhibadan tahay waxaan rabaa inaan iska soo koobo dawaafic khaarijiya kuwa aynu sheegnoo dhamme waa dawaafic baatiniya qofka isaga naftiisa
dawaafic khaarijiyo tiro badan baa jira laakiin marka aan soo koobo waxaan leenahay qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa usuusha siyaasadda faasidka uu ka warramayo hadday boqorradan markaa noocaa yihiin muxuu noqonayaa atacaamulu macahum see loola dhaqmaya waa maxay waajibka qofka muslimkaa saaran cagsigeeduna haddii kuwa kale ay qaabkan u dhaqmeen boqorrada saalixiintaha iyagoo qaabkay u dhaqmayaan waxaan jeclahay kanaan caawa tilmaamnay muqaddam uu yihi laakiin labada mawduuca kalean xoogga saaraya in sha allahu tacaala marka caawa halkaasaan ku dayay